maanta waxaan qaadan doonaa maadadeena sayniska fasalka 8aad waxaan ku qaadan doonaa habdhiska taranka ee naasleyda markii aan ka hadlayno saadi habdhiska taranka ee naasleydu waxa horta lagu qeexaa inuu yahay habdhiska taranka qaybtiisu inuu leeyahay dhiig kulul ama qaybta laf dhabarta bini'aadamka marka loo fiirinayo waxaan dul istaagi doonaa saadi qaybtan human being-ka ama xayatay male and female-ka human being ayaan idul istaagi doonaa ama bini'aadamka markii aan ka hadlayno laba jinsi oo kala duwan markay isku tagayaan waxay noqon doontaa dhaanay labadooda midkood inuu seel ama hal unug leh inuu midowsiyo ama uu dhiibo maxaa yeelay waxa meeshaas ka dhalay karo nucleus ahaan marka loo fiirinayo 46 koromosoom ayay waxay leeyihiin dhaanay human being one sperm marka loo fiirinayo oo marka uu dhiibayo aabuhu female-ka marka loo fiirinayo father-ku wuxuu joint ku sameeyay doonaa dhaanay one sperm oo ah egg one egg of a head of female ovaries marka loo fiirinayo labadan markay isku midoobayaan oo ah sifa hindisidaha ama genetic marka loo fiirinayo waxa meesha ka dhala doontaa dhaanay inuu dhiibo 23 chromosomes iyo 23 chromosomes oo ah jiilka kaleento cusub ee dhala doono wuxuu hindisidahan u yeelan doonaa dhaanay inuu leeyahay 46 chromosomes xubnaha taranka marka loo fiirinayo rag iyo dumarku way ku kala duwan yihiin iyadoo xilliga qaangaaraduna ay leeyihiin aanay age lagu talagalay balse dumarka marka loo fiirinayo ogaxaantoodu ama eegiskooda marka laga hadlayo inteena soo deen xilliga qaangaarka waxay diyaar already ku tahay marka ay hooyadu dhexdeeda caloosheeda lagu abuurayo female-ka marka loo fiirinayo hooyadu ama female-ka marka loo fiirinayo ugunteeda already way samaysan tahay kaliya waxa laga rabaa shaqo gelin goorma la shaqo gelinaya waxa la shaqo gelin doonaa dhaanay markii xayatoon cunugan amba gabadhan ay qaangaarto isbeeraha marka loo hadlaayeen asiguna xiniyo marka loo fiirinayo waa u diyaarsan yihiin kaliya asiguna wuxuu sugi doonaa dhaanay xilliga qaangaarka marka laga hadlaayeen way ku kala duwan yihiin qaangaarnimadu hooyada iyo xayatay iyo aabuhu maxaa yeelay gabadhu xilligada qaar ay ku qaangaarto waxay tahay waa 9 sano ilaa iyo xayatay daadeedu ilaa 14 15 kan ay socoto wiilashuna waa la yaqaanahu 13 sano 14 15 ilaa 18 kan qaangaarkooda ugu socdo xubnaha taranka marka loo fiirinayo ragga iyo dumarku way ku kala duwan yihiin ragga oo kale inta waxay leeyihiin dhaanay laba xaniya mahano marinka shahwada mari doonto ama tubada xawada iyo waxa kale laadana qaranka qanjiraha taranka oo kale inta qanjiraha marka loo fiirinayo taranka aan ka soo gudubno xubnaha taranka naasleyda marka loo fiirinayo qaybtooda female-ka ama dumarka marka loo fiirinayo iyagana waxay lahaan karaan qaar kamid ah tubada ukunta soo mareysay oo gaxankeedaasha meesha gaxanta lagu keedinayo uterus ilmagaleenki iyo tubada xawada mareyso alfaamalayna iyo tubada xawada mareyso xilliga marka laga hadlayo naasleydu way ku kala duwan yihiin dhaanay kubooda marka loo fiirinayo in human ama in animalsku waxay leeyihiin qaad kala duwan tusaale kale inta marka loo fiirinayo humanku meeqa bilood ayay sidaan 9 bilood ayay sidaan ma 9 months ayay waxay sidii doonaan dhaanay ku jirku marka loo fiirinayo sida marka aan ka hadlayno qaybahooda dambe waxay noogu jiri doontaa dhaanay cunugu marka uu ku gorayo caloosho ama uu ku jirku ku kori doonaan waxa ka dhalan doonaan in cunugu meeshiisa lagu qoodiyo balansantahay qoodiso intee loo soo marsi doonaa xundurta ayaa loo soo marsi doonaa maaho marka aan ka fiirinayno xundurtu hadhood markii cunugaani xilligeeda la gaaro waxa jiraan dhaanay laba hormoonis labada hormoonna wixii kaliya hormoon waxa la yaqaan dhaanay progesterone iyo waxa kale loo yaqaan progesterone Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin
qof dhan mustaqbalkiisa.